15 xildhibaan oo kamid ah golaha shacabka ayaa laga joojiyay kulanka Isniinta ee kala fadhiga golaha shacabka ee Soomaaliya. waxay ahayd 25 Maaj galabnimadii Khamiista markii lacag loogu qaybiyay hotelka Airport mudanayaal ka tirsan golaha shacabka si ay uga hortagaan fadhiga golaha shacabka ee Sabtigi furmay. dawladda Kenya oo kaashanaysa Imaaraadka ayaa taageero dhaqaale siisay qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka. xildhibaanadan 15 ah iyo koox kale oo ka tirsan aqalka sare ayaa dhaqaalahan u soo qaatay sidii uusan u furmi lahayn fadhiga golaha shacabka. waa dad dawladnimada diidan, waa dad Imaaraad iyo darasha shisheeye iyo ay kalkaalayaan nabadii diidan, horumarkii diidan, dawladnimada diidan. dalkaas madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku joogaan sharciyad. ujeedooyinka laga lahaa fadhiga baarlamaanka ayaa ahaa xaaladda caafimaad ee dalka uu marayo iyo sidii bulshada Soomaaliyeed cudurka COVID-19 looga badbaadi lahaa. xildhibaanadan oo ujeedkoodu yahay qalqalgelinta amniga caasimadda gaar ahaan golaha shacabka ayaa bilaabay ka hor furitaanka buuq iyo sawaxan keenay inuusan golahu furmin, taasoo iyaduna dhashay in fadhiga Isniinta gabi ahaanba laga joojiyo. sida ay qabaan dad badan talaabada golaha shacabku ka qaaday 15 xildhibaan ee fowdeeyay fadhiga baarlamaanka waxay ka dhigan tahay isla xisaabtan dhab ah iyo inaysan jirin cid sharciga ka sareysa.